kulanti wacan daawadayaal kusoo dhowaada warbixin ku saabsan waxbarashada dalka Turkiga. Inta aanan u gudagelin warbixinta la xiriirta 6 jaamacadood ee ugu raqiisan dalka Turkiga, aan wada eegno warbixin kooban oo la xiriirta waxbarashada dalkaasi. Waxbarashada dalka Turkiga waa mid qaranka uu gacanta ku hayo, waana hanaan dowladeed oo la hirgeliyay markii madaxweynihii hore ee dalka Turkiga Mustafa Kemal Atatürk uu xukumayay dalkaasi sanadihii 1923 ilaa 1938. Hanaanka waxbarashada ee dalka Turkiga ayaa ah mid lagu sameeyay in ardada ay noqdaan kuwo xirfad yaqaan ah, waxaana xooga lagu saaraa waxbarashada bulshada iyo dhaqaalaha, kuwaas oo xoojin kara hay'adaha dowladda ee dalka Turkiga. Iskuulada marka la eego dastuurka jamhuuriyadda dalka Turkiga, muwaadin walba waxa uu leeyahay xuquuq waxbarasho oo lacag la'aan ah marka laga reebo meelaha ay ajaanibta ay leeyihiin ee wax lagu barto, waxaana luqadda Turkiga ay tahay tan koowaad ee ardada wax lagu baro marka la eego goobaha ay dowladda gacanta ku hayso. Waxaa qasab ah in sida caadiga ah 12 sano oo maro waxbarashada ardada dalkaasi Turkiga, waxaana ay leeyihiin sanad dugsiga dhexe ilaa dugsiga sare. Mana jiro ardada wax lacag ah oo laga doonayo muddada oo ay da'dooda u dhaxayso 6 sano ilaa 18 sano, waxaana meesha ka cad in ardada 6 sano jir lagu geeyo xarumaha waxbarashada ee dalka Turkiga oo 12 sano oo toos ahna ay dhigtaan. Markana aan eegno warbixinta la xiriirta jaamacadaha ugu raqiisan dalka Turkiga. Ma doonaysaa inaad ka qayb gasho waxbarashada dalka Turkiga isla markaana aad xaadirto mid ka mid ah jaamacadaha dalkaas? Waxaan halkan kugu soo gudbinayaa jaamacadaha ugu raqiisan dalka Turkiga marka la eego dhaqaalaha ku baxaya waxbarashada semesterkii, waxaana jaamacadaha ay u kala sareeyaan sidan. Jaamacadda Edge University. Jaamacadan waxaa la aasaasay sanadkii 1955, waxa ay ka mid tahay jaamacadaha ugu weyn ahaan dalka Turkiga. Ardada caalamiga ah ee ajaanibta ah ee aan u dhalan dalka Turkiga waxay jaamacadda ay ka heli karaan 17 kulliyadood oo kala duwan. Waxaa la sheegaa in xilli waxbarasheedka jaamacaddaas inuu ku baxo dhaqaale aan badnayn, waxaana la sheegay in sanadkii lagu dhigto dhaqaale gaaraya $400 haddii waxbarashada ay tahay mid scholarship ahaan oo qofka uu ku helana waxaa sanadkii laga qaadaa $100, sida aan ka soo xiganay warbixintan mid ka mid ah websaytyada sida caalamiga wax uga qora waxbarashada dalka Turkiga. Jaamacadda labaad Üsküdar University ayaa la yiraahdaa. Inkastoo jaamacadan dhawaan la aasaasay, waxaa la sheegay in kulliyadda caafimaadka ay ku wanaagsan tahay. Inkastoo kulliyadaas ay ku wanaagsan tahayna, waxaa la sheegay inay leedahay kulliyado kala duwan sida injineeriyadda, bini'aadamka iyo xiriirka isgaarsiinta. Waxaan ka cudur daaranayaa in jaamacaddaas dhaqaalaha ku baxa sanadkii aanan helin. Jaamacadda kale waxaa la yiraahdaa Bogazici University. Jaamacadda Bogazici waxa ay la aasaasay sanadkii 1863. Waxaa aasaasay nin lagu magacaabo Christopher Robert. Waa jaamacad fasalada dhan luqadda Englishka lagu dhigo maadooyinka. Waxaa la sheegaa inay ka mid tahay jaamacadaha ugu wanaagsan dalkaas marka loo eego sumcadda iyo soo jireenkeeda. Jaamacadda kale waxaa la yiraahdaa jaamacadda Middle East Technical University. Ardada ajaanibta waxa ay ka heli karaan koorsooyin yaryar oo kala duwan oo gaaraya 5 faculty, waxaana la sheegay in ay ka mid yihiin kulliyadda artiska iyo sayniska, dhaqaalaha iyo maamulka, iyo sidoo kale injineeriyadda. Waxaa la sheegaa inay aad uga dhaqaale yar tahay jaamacadaha kale ee dalka Turkiga marka loo eego ardada ajaanibta ee dhiganaya. Jaamacadda kale waxaa la yiraahdaa Yazar University. Waxay ka mid tahay jaamacadaha ugu waaweyn ee ugu wanaagsan ee caalamiga ah ee ku yaala dalkaasi Turkiga, maxaa yeelay waa jaamacad diiradda lagu saaro caalamiyeynta ama internationalism, waxaana lagu bartaa luqadda Englishka. Jaamacadda waxay diiradda saartaa inay qorto ardada ajaanibta ah iyaga oo kor loogu qaado kala duwanaanshaha ama diversity. Jaamacadda kale waxaa la yiraahdaa Kankaya University. Jaamacaddan waxaa la aasaasay sanadkii 1997. Maadooyinka ugu badan ee ardada ay ka helaan waxaa ka mid ah inay master iyo PhD iyo sidoo kale bachelor ay ka diyaarin karaan kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda ay bixiso. Waxaa sidaa ay kaga mid tahay 6 jaamacadood ee ugu raqiisan dalka Turkiga. Waxaan filayaa inaad haddii aad danaynayso ka mid noqoshada ardada ajaanibta ee dalkaasi wax ka barta inaad ogaan karto jaamacadahaas oo aad baari karto beejajkooda. qaybta hoosena waxaa yaala warbixintan oo aan soo tarjunay, halkaas oo aad linkiga ka heli karto dhaqaalaha jaamacadahaasi ku baxo.